Roob lixaad oo maalmihii la soo dhaafay ka da'ayay inta badan gobollada dalka ayaa hakad geliyay isku socodka gaadiidka ee gobollada. Hakadka ay keeneen roobabka oo ay ka dhasheen daadad wuxuu saameeyay gaadiidkii isku xiri jiray magaalada Kismaayo iyo degmooyinka hoos yimaada sida degmada Afmadow iyo deegaanka Doobley. Sidoo kale hakadku waxa uu saameeyay gaadiidkii u bixi jiray xeryaha qaxootiga Kenya ee Dadaab. Gaadiidleyda oo walaac ka muujiyay hakadka galay shaqadoodii ayaa dhanka kale ku faraxsan raxmadda Eebbe oo ku soo aaday xilli laga cabsi qabay abaaro. haddaba dadka safarleyda ah ee wata baabuurta ay ugu safrayaan magaalada Kismaayo ilaa inta u dhaxaysa Doobley ayaa iyagoo kuwa markaasi inta ugu badan ka sheeganaya safarka waa mid dheer iyo waliba baabuurta oo inta ugu badan ay caqabada ku tahay maritaanka wadada dheer ee dhiiqada. Hakadka ayaa sababay inuu kor u kaco qiimaha lagu raaci jiray gaadiidka. Roobabka ka hor gawaarida oo kala safra Kismaayo iyo xeryaha qaxootiga waxaa lagu raaci jiray $30 balse qiimahaasi waa isbedelay waxa uu noqday $70. Gawaarida qaar sida kuwa yaryar waxa ayba joojiyeen safarkoodii maadaama aysan jirin jid ay mari karaan. Xasan Axmed Dhoobaale waxa uu ka mid yahay kaariyaasha rara gaadiidka Kismaayo uga baxa xeryaha qaxootiga Dadaab waxaana nooga warbixiyay saameynta oo baabuurleyda ku yeeshay hakadka ka dhashay roobabka dayrta. Inta badan gobollada dalka waxaa si wanaagsan uga da'aya roobabka dayrta waxaana meesha ka baxay abaaro markii hore laga cabsi qabay in ay gobollada qaar ku dhuftaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo keenay raxmadani waa nimcana dhib ma keento. Cayayaanka ku nool, dhirta ku nool, dadka ku nool, xoolaha ku nool, dunyada ku nool. anagu waxaan ahay nimanka kaariyaasha halka ka shaqeeyo astaanka Doobley iyo xaga dheer baan dadku u dirnaa. waa shaqadeeni waa professionkeeni waxaa imaatay raxmadda Ilaahay. gaadiidka hore noo shaqeyn jiray waxaa bedelay gaadiid kale four wheel driver waxay ka shaqeeyaan inta iyo Doobley. baabuurtan aad arkayso meesha safani waa baabuurtii ka shaqeynaysa Doobley iyo xaga dheer. kaasi dadka waxay ku raaci jireen waagii hore $30 Doobley lagu tagi jiray. haddana cimiladii baa isbedeshay, dhulkii baa dhiiri noqday, baabuurtu way burburaysaa, gaadiidka sidii wadda toos ma haysto, cimiladii dhulku waa kala go'an yahay. dhulku waxaa jirta meelo waadiyo ah oo biyo ay wadaan. meeshaas awgeed waxaa lagu daray lacag dhan $70 noqday halka gurada. waxaa lagu jiraa xilli ay deertu bilow tahay inta ugu badan dadka gawaarileyda ah oo aan babaxa Doobley iyo waliba meelaha ka baxsan ayaa waxa ay ka sheeganayaan in roobabka dayrta ah ay saameeyeen safaradoodii iyadoo ay dadka baabuurta raacana ay markaas ku kordheen qarashaadkii ay ku ambabaxayeen. Awil Cabdi Cabdullaahi Labaqi, telefishinka Jubbaland, magaalada Kismaayo.